السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا ما بالشون الصومالية ذي نقول حرن وحاردينا دمانتنا نوضي عافمت قبطان الحمد لله أنا جنوا في عناي سؤال بدن وقال يسوي ديار بين فيديو جنوا جوابه ما دام شقده إنه يدول تهاي واحد مقالة ذاك الصعدو دولالك دنكي سقسيو إيدتكو آد يويدين أيقو مرول بيقعد سنة إنا وحفانسيو inta aan ku ogahan aan u sheego waxa laga yaabaa inta aan ku ogahay qaybo badan inuu aniga qalad ah fahmay way dhici kartaa inay saxan yihiin sidoo kale way dhici kartaa fikradeeda marka aan ka waramo inaan aniga iskula saxanahay laakiin dadka kale aaraad ay ka qabaan inay ka duwan tahay fiidiyoga marka waxaan uga hadlayo ma ahan xadiis nabi iyo aayad quraan ah wadci taagan bulshaduna ay aad weydiiyeen shaqadeena maadaama ay dhul tahay inaan wax uga baahino ama wax aan daaha uga qaadno wax ay ka ogaadaan sida ay wax u socdaan oo aan jecelaystay inaan uga jawaabo muuqaalkan weeyaan waxa laga yaabaa dadka qaar muuqaalkan inuu saameeyo oo ay qalad u fahmaan waxaan leeyahay idin ma jeedno inaan cid ku qaldano ma rabno naga raali noqdo waxa laga yaabaa dadka qaar inay ku baraarugaan oo wax ay u socdeen uga istaagaan anigoo fiirinayo codsiyada dadka ugu xiran tixgelinayo aniga waxa isiri waa qasab inay jawaabo bixiso si dadkaaga u qanciso macnaha dadka adiga kugu xiran si ay wax uga dhaadhicso ama waxa u fahansiiso waxay u badan yihiin dadka ugu xiran qurbo joog soo dhawaada marka inta hore noola joogtay oo muuqaaladeena la socotay kulay qaabka u shaqeyn way og yihiin laakiin dadka cusub waxa leenahay soo dhawaada muuqaalada anaga aan sameeyno waxay isugu jiraan dhulalka beeca ah guryaha beeca ah iyo waliba maalgelinta dhulalka dalkaaga hooyo magaalada Muqdisho iyo daafaheedo dhan sidoo kale waxay isugu jiraan muuqaalo taariikh ah oo aan mar walba uga warano xaalad walbo ama muuqaalka xaafad walba ee magaalada Muqdisho ku taala aragti ahaan inaan u diiwaan galino oo diiwaanka taariikhda uu noo galo muuqaalka inta hadaan la fahanteen waxaan guda gelayaa faahfaahinta aan ugu talagalay inaan muuqaalkan ka dhiibo dhulalka dawladda la bixinayay anaga sax waaye iyo qalad waaye nooma taalo waxba nagama gelin laakiin qaabka dadka dhulalka u qaataan qaabka loo sharciyeeyo qaladaadka jiro aan rabaa inaan daafuro wixii markaa laga yaabay inaan waxna ka qaldo waxna ka saxo way dhici kartaa saa hore idinkugu sheegay dhulalka waxay isugu jiraan dhowr qaybood dhulal waa dhul dawladeed ee xarun dawladeed rasmi ah dhulkan wuxuu ahaa tusaale ahaan warshad dawladda Soomaaliya ay lahayd wuxuu ahaa xarun dawladda Soomaaliya ay lahayd oo wax lagu qaban jiray la yaqaano waa taqaaniin wasaarado warshado xerooyin waxyaabo badan la bixiyay oo dhulalka la bixiyo la sharciyay isugu jira dhulalka marka waxa lagu ogyahay dhul dawladeed inuu ahaa dadkii deganaan way ogyihiin kuwa hadda gatayna way ogyihiin inuu asalka dhul dawladeed ahaa dhulka nooca ah waa qodob ka dawladda bixisay shalay dawladda lahayd maanta dawladda bixisay anagu waxba kama dhigi karno bari waxa imaan doona ma ogin qofkii dhulka uu deganaa inta loo sharciyay sharci laga siiyo dawladuna ay fasaxday iibisay shaacisayna inay iibisay qofka ku qaatay uu qaatay mid kale ma ka waramay aniga xugun sharciya culimada la weydiinaa laakiin waxa ka waramay waxay tahay xaaladda magaalada ka taagan dhulkaas waa la qaadan karaa oo waa la gadan karaa waxa gadan kara qof walba hanti haysta ama qofka meesha deganaa inta badan waxa loo sharciyeynaa dhulalka lagu soo qaatay in laga gado dadkii meesha deganaa qayaana hadii la sameeyo dadka meesha deganaa inta la qayaano dad kale laga gado lacagtaas oo dhan xaraan noqonayso sida aqli ahaan iyo sharci ahaanba loo baari karo laana madaxweynuhu wuxuu sheegay markii dhulalkan danta guud la bixinayay amarna uu ku bixiyo yiri waraaqdana ku qoran waliba waxa loo bixinayaa ama la siinayaa oo laga iibinayaa dadka meesha deganaa meelo waxaa jiraan aan laga iibin dadka meesha deganaa lagu dulgatay dadka inta loo yimidna la yiri xalaal calayki
meel waxaa jiraan dadkii lahaa loo sharciyeeyo ayaga ay qaateen way isugu jiraan dhulka marka qofkii lahaa uu asaga qaatay uu gatay uu iska sii gadayo dee dowladii ka gadatay lacag uu kala baxay uu iska sii iibinaya waa normal dhulka qofka meesha degan uusan lacag haysanin uu ku yiraahdo dhulkaana haystaa iga gado waxaan lacagtan sharciyeyntan iska dhiib anigana waa ku qanacsanaana waa qodob kale ama meelaha qaladaadka badan uu ka jiro wax waaye laba meelood meel waxa ku qaldan dadka ganacsatada ah ee dhulalka qaataan waxa ay ka sameynayaan ay xaraan tahay sharciyana qalad weyn oo de jariimo la dhihi karo ay galeen oo ah dhulka dawladda ay soo siisay tusaale ahaan dawladda waxay soo siisay 200 oo boos awraaqda noola ostada oo dawladda ka soo baxda ku qoran waxay sameeyaan dhulalka area-da ahaa ay ku darsanayaan 100 kale to dhul kale taa ama 50 kale ama 10 kale xitaa hal boos ba Allah ka dhigo oo aan dan guud ahayn dhul dawladeed ahayn dhulka dawladda daris la ahaa sharcina wata dhulka qof idinka mid ah oo dhul maalka shanay yuusan lacag isaga bixin laana qofka dhulkaas iska leh sifa sharciyo ku leeyahay dhul dawladeed dhulkiisa ma ahan sharciyo u wata ama siyaad bar ha noqdo ama carta ha noqdo ama xasan sheekh ha noqdo ama farmaajo ha noqdo xilligu doonaya ha noqdo qofka dhulkan dawladda ee danta guud waa la yaqaan weyna diiwaanka shantahay waraaqda noola ostadan waxa ku qoran inta boos ee meeshaas madaxweynuhu uu bixiyay oo saxiixiisa uu ku bixiyay ninka marka xeyndaabkaas inta ka gudba dhulkan kale ee dariska la ah laga gado lacagtiisa meel qaldan uu ku bixiyay mar walban waa la isaga daba imaana qofka dhulka lahaana weligii ka harimay mar uun cadaalad oo asaga xaqiisa u soo dhiciso wuu sugana wuuna dagaalama wuuna juhdi kastii qarash kastana uu ku bixinaa laana waa wixii xoog lagu haysto qodobka labaad waa dhul asalkii dawladii siyaad bare dadka ay ka qaaday marka ay ka qaaday kadib dadka ayadoo deegaamin siinin oo aan meel kala dejinin xarunna aan laga dhigin oo xiran aan laga dhigin dawladii ay ku dhacday dadkaas dhulkaas oo kale dadkii gooflayaasha ahaa asal lahaaya dib u cishti dawladdan waxa u diiwaan gashan dhulkan inay qaadatay qaadashadii dadkan meelay degaan iyo wixii xuquuq ay lahaayeen lama siinin xarun asal oo la yaqaan la dhihi karo waxaas lagu qaban jirayna ma ahan dadkii way qaateen way sharciyeysteen dib u iibiyeen gooflayaal ka imaaday sharcigiisa uu saxan yahay dadkii goofka lahaaya qaatay dawladdan waxa uga diiwaan gashan inuu dhul dan guud yahay shacabkuna waxay ogyihiin dan guud inuu shaqo ku lahayn oo xero dawladda ay leedahay ama wax uun lagu qaban jiran inaysan ahayn dawladda intii ay shaqeynayeen aan shaqo lagu qabanin markii dawladda ka dhacday kadibna dadkii lahaa ay dib u cishteen dhulkooda sharciyeysteen qaladka marka ugu daranna meelahaas uu ka jira dhulalkaasna xaaladooda say noqon doonto lama ogu way adag tahay qof inuu isaga dhiirado ani fikir ahaan laana dadkaas koofleyda ah oo dhulalka ay lacagta ka bixiyeen ama dadka sii iibsaday xitaa mar walba soo laba kacleyn karaan qodobay ku doodi karaan inay haystaan oo ah dhulkan anaga dawladda toosna uu lama wareegin meela degnana ma siinin way nagu dul dhacday anagana dhulkeenu waa cishana waa sharciyeysanay waana kana sharcigaana u haysanaa murana ka imaan karo macnaha fihi shay wax un baa ku jira ishkaal ah laakiin mar walba hadaaba dhulka dawladda rabtid oo dib laga bixiyay inaa gadatid dhulka la og yahay inuu dhul dawladeed yahay xeer la og yahay shaqeyn jirtay inuu ahaa dhaxbartanka ka gado dhul wixii ka baxsan lacag isaga bixinin aniga si fikir ahaanteed ay tahay waa anaga miidiyaheena kuma iibinayno oo anagu de ma gelin baabka wax dhul dawladeed ah oo aan hadda iibinayno ma jiraan qofkii asaga u baahdo oo yiraahdo meel hebel aan wax ka raba anaana diyaar ah waan ku qanacsanahay hal iiga keeno de qofka asaga dalbaday waan uga shaqeynaa laakiin si public ahaan inta soo bandhigno uma iibinayno dhulalkan hadda socda ama hadda la bixinayo qofkii rabo uu iibsan karaa qofkii rabana uu iska diin karaa saar idinku sharax waxaan rajeynayaa inaynan qalad u fahminin anigana ilaahay iga cafiya daa wax qalday intii warkayga uu dhib iyo dhaawac ku noqdana ka raali ahaada aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah